السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا داودي القناة دعوة تيوب إي قصدان كو عبر قادشada mudan oo idin soo jeedin doona anigo ah Zaki Maxamuud balse inteenan bilaaban qisadeena fadlan like saar si aan u ogaano inta qof ee jecel qisooyinka ninkan aad u jeedaan waa nin aad u naxariis badan dadkan u kaalmeeya subax waliba markii uu ka soo baxo gurigiisa una sii socdo goobtiisa shaqada waxa uu ahaa mid u kaalmeeya dhammaan dadka u baahan in loo kaalmeeyo wuxuu soo maray wado dhinaceeda ay fadhiyaan gabadhan yar iyo hooyadeeda oo ka dawarsada wadada dhinaceeda ninkii ayaa dul yimid wuxuuna boorsidiisa uga soo bixiyay lacag aad u fara badan wuuna siiyay maalin walba wuxuu albaabka qolkan ku xiri jiray qayb moos ah si ay ugu qaadato una cunto haweeneydan waayeelka sidoo kale wuxuu mar waliba waraabin jiray geedaha ka baxa hareeraha wadooyinka wuxuuna sii caawin jiray dadka u baahan in la kaalmeeyo maalintii xigtay ayuu soo maray wadadii ay fadhiyeen gabadhii miskiinta ahayd iyo hooyadeed gabadhii ayuu siiyay lacag aad u fara badan si ay waxbarasho iyo mustaqbal wanaagsan ku hesho kadib markii uu soo laabto gurigiisa wuxuu quudin jiray digaag u dhex joogay beer uu ku lahaa guriga dhexdiisa wuuna waraabin jiray beerta subax waliba markii uu sii socdo shaqada waxa uu wadooyinka ka sii raadin jiray qof u baahan saacideen si uu saacideeyo maalmo kadib ayuu soo maray wadadii ay fadhiyeen gabadhii yareed iyo hooyadeed si uu siiyo lacag kale ay ku maareeyaan noloshooda wuxuu ugu yimid meeshii hooyadii kaligeeda oo gabadheediina ay ka maqan tahay wuxuuna la yaabay halkay aaday gabadhii yareed wax yar kadib wuxuu maqlay codkii gabadhii yareed oo oranaysa hooyo hooyo kadib markii uu eegay gabadhii yareed wuxuu arkay arin la yaab leh gabadhan waxay aaday madrasada dharka boorsada iyo dhammaan shayada kala haysato waxa ay ka gadatay lacagtii uu siiyay ninka naxariista badan ee qalbiga jilicsan waxayna gabadhan la mid noqotay caruurta kale ee madrasada isla dhigtaan haddaba qisadan waxaynu ka baranay qiimaha ay leedahay isu kaalmeynta iyo in loo naxariisto masaakiinta fadlan sii faafi qisadan oo gaarsii ehelkaaga iyo dhammaan muslimiinta oo dhan waad ku mahadsantihiin daawashadiina fadlan haddii ay qisadan ku cajabgelisay like saar si aan u ogaano inta qof ee jecel qisooyinka waxay noo horseedaysaa inaan soo badino qisooyinka sidoo kale haddii ay markii kugu horeysay oo muuqaal aad ka daawanaysid kanaalka dacwa tube fadlan subscribe saaro si aad ula socotid muuqaalada dambe furo gambaleelka si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya waa saaxiibkiin Zaki Maxamuud oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Mm-hmm.